موضوع كودا سابسن إنان إذن لأن إسلو ذاقنو وحويه وحان كو ugu magac daray caruurtaydiyo waxaad rabtaan inaan jannada wada gallo mise waxaad rabtaan inaa idinkuna jannada gashaan aabihiinna uu naarta galo miyaad rabtaan qisadaasi waxay ku timid oo ay ahayd cumar ibn cabdilcaziiz amiir almu'miniin waxaa la jira waa khaamisu alkhulafaa alraashidiin shanta khulafaa alraashidiinta marka la tiriyo abubakar cumar cuthmaan cali kii shanaad tira ahaan ma ahayn laakiin darajo ahaan yaa la yidhaahdaa iyo fadli ahaan ayuu ahaa maalin maalmaha ka mida subax ciid ah ayaa waxaa u timid gabar yaroo dhalay oo ooyeysa oo aada u ooyeysa oo qarracansan oo dareemi kartaan waalidku markuu arkay ilmihiisii oo murugaysan oo ooyaya siduu dareemayo markaasuu wuxuu ku yidhi yaa bunayati lima tabki maxaad la ooyeysaa gabadhaydii maxaa kaa ooyey markaasa waxay ku tiri aabow dadka carruurtii aan fiiriyey markaasa waxaan arkay carruurihii dadku dhaleen oo dhan waxay wataa dhar qurqurxoon oo cusub anoo gabadhii amiirulmu'miniin uu dhalay ana dhar qadiim ahoo duug ahoo hore baan ku iidaya say ku dhacday arrinkaas arrin ii cuntoomaya cumar marka gabadhii oohinteedii markuu la yaabay ayuu murugooday markaasuu kacay suu xal u raadiyo xal u helo wuxuu tegay baytulmaalka muslimiinta ayuu tegay ninkii khaasinka ah khasnajiga ahaa ayuu u tegay wuxuu ku yidhi niyo waxaan kaa rabaa mushahaarkaygii aan bisha soo socota qaadan lahaa inaad ii hormariso oo in advance aad ii siiso oo aan dana ku guto markaasuu wuxuu ku yidhi maxay tahay dantu markaasuu sheekada uga sheekeeyey saasaa i haysata dhibkaasaa i haysta marka waa inaan gabadha xal u helan dhar u gado wuxuu yahay amiirulmu'miniin waan ku siinayaa bisha lacagteeda waan ku hormarinayaa laakiin hal shardi buu ku xiran yahay wuxuu shardigaas waa maxay waan fulinayaa markaasuu haddaad ii ballan qaadid inaad bisha soo socoto noolaanayso oo aad shaqaynayso mushaharkeeda waan ku hormarinayaa laakiin haddaadan ii ballan qaadi karin inaad noolaanayso waqti aad dhimanaysa aadan ogeyn kuma hormarin karo cumar arrinkiibu intuu ka naxay oo uu fakeray ayaa waxaa u soo baxday inuusan garanti garayn karin inuu noolaanayo in kale markaasuu gurigiisa usoo noqday carruurtii wuu isugu yeeray marka wuxuu yihi carruurtaydiiow saasaa dhacday waa raadiyey xataa dayn baan raadiyey xataa waxaan raadiyey horumaris bishii ah waan soo waayey laakiin su-aal baan idin weydiinayaye iiga jawaaba waxay dhaheen haye aabbo wuxuu yihi ma waxaad rabtaan inaan inagoo isku duuban oo jamaaco ah oo hal famil ah aan jannada gallo mase waxaad rabtaan inaad idinkuna jannada gashaan aabihiina aada naarta u dirtaan markaasay dhahaan aabba waxaan rabnaa inaan inagoo isla wada soconna aan jannada gallo aabbaheenna aanaan naarta u dirin markaasuu jannada waxaan ku gelaynaa haddaba inaan dulmigana iska ilaalino wax aanan xaq u lahayna aanaa qaadanin intii ilaahay idin siiyeyna waa intaas aada u jeedaan qisadaas waxaan usoo qaatay cibar baa ku sugan cibrada koowaada ku sugan waxaa weeye dad badan oo naga mid ah carruurtoodaa naarta gelisa waana midda ilaahi u leeyahay waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ogaada carruurtiina iyo maalkiina waa fitno jacaylka carruurtaa qofka naar geliya raashin u raadi dhaqaale u raadi biil u raadi income u raadi guri u dhis ayaa qofka naar gelinaya marka qisada labaad oo midaan la mid ah oo aan ku daray waxa weeye carruurtu mararka qaarkood dulmi bayna geliyaan inaan dad goyno inaan la dagaalanno inaan dadka baabi'ino balaayo inay dhacdo carruurta dartood marka qiso waxaa dhacday nin dadkii hore ka mid ah ayaa carruur gabar uu dhalay oo yar buu guriga uga tegay gurigana waxaa u waardiyeeyey ey waa nin beeraley ah eygaasaa xaaris ahoo u ah wehel guriga u waardiyeeyey marka saf wuxuu aaday ugaarsi u aaday ugaar buu doontay isagoo hantin sameyna ugaar doontay oo galabkii soo noqday ayuu wuxuu maqlay eygii oo qaylinaya meesha waa meel cidlaa waa guri cidlaa markuu dabcan inuu soo galo ayuu wuxuu arkay eygii oo dhiig leh oo ilkihii dhiig ka buuxo oo gacmihii dhiig lugihii dhiig ku leh oo albaabkii taagan oo qaylinayo xanaaqsan subxaan allah idan eygii gabadhii wuu cunay ninkii wuu xanaaqay wuxuu sameeyuu garan waayey eygii wuu hal mar qorigu watay ayuu xabad wadnaha kaga dhuftay
eygii wuu raftay naftii baa ka baxday ninkii isagoo wareersan oo meel jooga aan garanaynin ayuu wuxuu is yiri guriga intaad gashid bal gabadhii lafaheedii iyo raadii eygaan balaayo qabuhu cunyi markuu gurigii galay ayaa waxaa ka hor yimid yey intay guriga soo gashay oo uu eygu kala gooyey oo dhiiggeeda ku rafatay ku baktiday iyo gabadhiisa aan xabadi taaban waxba aan ku dhicin waxay qisadaas daliil u tahay ikhwaani waxa aad hubsanin dulmi buu ku geliya hadda meeqa qof baa u dhimatay tuhmo iyo waxaan la hubin meeqa qof baa u kala go'ay dad walaalo ah oo isjecla u kala go'ay tuhmo meeqa reer u burburay tuhmo meeqa caruur u horseeday waalidkood dhibaato waxaan ku leeyahay akhi muslim wa ukhti muslima caruurtaada jacaylka aad u qabtid yayna naar ku gelinin caruurtaada yay ku sababin inaad naar aado ayagana aad janno u shaqayso oo tarbiyeynayso jazakumullahu khayr